Assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada kanaalka Layaabka Media. Haddaba muuqaalkiina maanta waxaan kaga hadli doonaa shakhsiyaad ugu baxsaday xabsiyada ay ku jireen qaabab cajiib ah. In badan oo ka mid ah dhacdooyinkaas waxaa laga sameeyay filimaan caan noqday. Inta aanan barnaamijka bilaabin, waxaa idinkula wadaagi doonaa nin ku takhasusay sida xabsiyada looga baxsado, waxaana lagu tilmaamaa inuu ahaa shakhsigii kaliya uusan jirin xabsi celin kara, maadaama uu ka baxsaday xabsi kasta oo lagu xiray. Yoshi Shiratori oo loo yaqaan ninka aanu jirin xabsi celin kara, wuxuu ahaa Jabaanees ku dhashay magaalada Aomori ee dalka Jabaan laga soo bilaabo qarnigii 710aad. Ma jirin maxaabiis ka baxsatay xabsiyada Jabaan, taas oo muujinaysa sida ay u adkeyd in laga baxsado xabsiyada dalkaasi. Bilowgii, Yoshi ayaa lagu soo eedeeyay dambiyo isugu jira dil iyo dhac, balse waa uu diiday inuu qirto. Waxa uuna sheegay in aanu gelin dhammaan dambiyadaas, balse Yoshi ayaa waxaa lagu xiray xabsiga Aomori muddo 3 sano gudahood ah. Waxa uu iska furay albaabkii qolkiisa, isagoo adeegsanaya katiinadii lagu jeebeyn jiray. Sidaas ayuu ku baxsaday. Muddo kadib ayaa la soo qabtay, waxaana lagu xiray xabsiga Akita, balse habeen walba marka ay ilaalada xabsigu seexdaan, ayaa wuxuu u bixi jiray saqafka xabsiga, isagoo habeen walba qayb ka mid ah saqafka duleelin jiray. Ugu dambeyn ayuu banaystay meel uu ka bixi karo. Intaas kadib waa uu baxsaday, laakiin mar labaad ayaa la soo qabtay, waxaana loo gudbiyay xabsiga Bashiri. Xabsigan ayaa ahaa mid aad u adag. Sidoo kale Yoshi waxaa katiinad loogu xiray gacmaha iyo lugaha, balse mar kale ayuu la yimid fikrad aad u cajiib ah. Marka loo keeno cuntada, waxa uu maraqa cusbada leh ku shubi jiray katiinada kaga xiran gacmaha iyo lugaha, iyo daaqad yar oo cunnada loogu soo dhiibi jiray. Muddo yar kadib, daaqadii iyo katiinadii waxay bilaabeen in ay daxalaystaan. Sidaas ayuu iskaga furay katiinadihii muddadii lagu jiray dagaalkii labaad ee adduunka. Bishii 8 1944 ayuu ka soo baxay daaqadii cunnada loogu soo dhiibi jiray. Waa uuna baxsaday, laakiin nasiib daro markaana waa la soo qabtay, waxaana maamulkii xabsiyada Jabaan go'aansadeen in markaan si adag loo ilaaliyo ninkan. Waxaana loo wareejiyay xabsiga Sapporo, waxaana loo sameeyay 6 askari oo ilaaliya, kuwaasi oo 24 saac kormeerteen jiray. Balse maamulka xabsiga Sapporo waxa uu sameeyay 2 qalad oo aad u waaweyn. Midka koowaad, waxa ay awoodda saareen siday u adkeyn lahaayeen albaabada iyo saqafka, balse kama aysan fikirin dhulka hoose. Midka labaad, waxa ay ka fureen katiinadii gacmaha iyo lugaha kaga xirneyd. Isagoo arkay fursaddan, Yoshi waxa uu qoday xagga hoose ee qolkiisa. Muddo kadibna Yoshi Shiratori waxa uu ku guuleystay inuu sameysto wadadii uu ka bixi lahaa. Sidaasi ayuu ku baxsaday. Aad ayaad ugu mahadsantahay daawashada. Fadlan haddii aad ka heshay muuqaalka like saar, sii share garee oo la wadaag asxaabtaada. Muuqaalka xiga intaan ku kulmi doono, waxaa idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.